soo dhawaada khiyaaray meel kastoo dunida ka joogtaanba waa mar kale iyo barnaamijkeena faaqidaada wararka. qodobada aad wararkeena ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ciidankii ugu tirada badnaa, saraakiishii ugu tirada badnaa ayaa ka soo horjeesaday dowladda Itoobiya una galay mucaaradka dalka Itoobiya, gaar ahaan xoogaga ka dagaalamaya waqooyiga Itoobiya ee faana loo yaqaano ayuu militariga ugu badnaa la heshiiyey. 4 generaal ciidamo ay wataan oo guutooyin xoog badan ah oo guutooyinka madaafiicda ah kuna sugnaa gobolka Amxaarada. balaayada dhacday baa hal mar noqday isbedel doon. ciidamada ma mushaar baa la siin waayay, ma wax kala jira? hal mar bay soo hadleen, waxay dheen dalkan isbedel baa ka dhacaya, dabayshu dhanka ay u socotaan oo la soconaa. war ma generaal Magbay baa ka dhaxadlay. generaaladaasi maanta waa faano, waa isbedel doon. Itoobiya war weyn baa ka soo socda khiyaaray. qodob waa qodobkaas. qodobka kale, ninkii Abiy aha waa kii ka qayb galay shirkii BRICS ee G20 dalalka loo yaqaano ee ka dhacaya Koonfur Afrika. markuu shirkii tagay, wixii Itoobiyaan joogay Koonfur Afrika ayaa albaabkii laga qaban waayay. Abiy bay ku wada qamaamayaan, waxay ka codsanayaan caalamka inay Korneyl Abiy Ahmed loo qabto oo uu dambiile yahay, dalkii Itoobiyana kala tagay, gacantiisana uu ku burburiyay. hadday dunidu tol tahayna ninkaan uuna Itoobiya dib ugu noqonin. war Korneyl uu managii galay xaggee geli doona waaya haddiiba qurba joogtii laga kirlay. ma ninkaasay kula tahay inuu Itoobiya ku noolaan? waa habeenkii xalay tagay. sidoo kale ammaanka Addis Ababa ayaa aad loo adkeeyey. ma garanayna waxa khaldan. kumanaan ciidamo ayaa wadooyinka taagan baa la yiri oo dadka aad u baaray. Itoobiyadu markay dabayl dhan u socoto way isku dhax yaacdaa. shaki baa kala gala. waxan waa qabiil mugto, waa qabiil dalku. waa Amxaari iyo Oromo iyo Addis Ababa isku yaqaan. labadaas meesha isku haysata. qola Amxaaray waayo qola duur ku jirta. Oromaduna waa labo, qaybina waa dawlad, qaybina waa duur ku jir. marka caasimadii baa gelgelanaysa. odaygii joodariga laga bedelaa marka sar xogta ku helay. qodobadaas ayaan khaaray faaqideynaa. barnaamijka share gareeya marka hore. barnaamijka like-ta ka halmaamina. like-tu waa muhiim. barnaamijka ayay fogeynaysaa, cadawgana guryahooda ayay ugu geynaysaa. aynu u guda galno. dalkii Itoobiya la dhihi jiray, horta iga qaata caawa wadadii burburku cagta saaray. dal haddaad aragto ciidankiisu lagaga itaal roonaaday furimaha, ciidankiisu dagaalka ayna xabadda hoorinaynin, nin walba wuxuu leeyahay hebel yuuna adima dhiman, hebel hadduuna dhimanayn. xabadda waa la isku fiirsanayaa, waa la kala siibanayaa. dagaal 12 saac qaatay ayaa ka dhacay gobolka Axmaarada oo ay diyaarado ka qayb qaateen. ciidankii dawladdu ayagii baa birta iska aslay. tay kala garan waayeen sidoo wuxuu yahay jaawareer ku dhacay ayay birta iska asleen. waa tii diyaaradii shalay dib u duqaysay xerihii ciidanka ay ka soo duulayeen. maantana maxaa dhacay? maantana waxaa dhacay guutooyinkii madaafiicda. 4 generaal oo ka soo kala jeeda 4 qowmiyadood, oo xataa mid uu Orom yahay, mid Dhabuub yahay, mid Canfar yahay, mid Amxaar yahay, yaa intay tashadeen bay waxay dhaheen waxa aan ku jirra waa cadaab. dal horumar lama joogno, dal nabad u soo socota ma joogno, bal inay isbedel doonku nabad keenaan oo waxan ka baxano. 8 sano baan qori iyo dagaal la ordina kaara saarana. nafteena aan u hurra dalka inaan badbaadino ayay dhaheen. 4 Korneyl muuqaalka ayagoo socda ayay faana ku hagaysaa fooneeya. halkeed soo maraysaan? heblaan soo soconnaa. wasoo ciidankii away way soo socdaan. calaamadeed bixinaysaan. gudhuu badhaa, gunu garna. ayagoo nabad ay faana u yimaadeen
salaan sharafaa la kala qaatay waxaa lagu heshiiyey nin walba difaaciisa dhanka galo ciidankaas waa military dabaabaad bay wataan kaarayaashii ciidankay wataan calankii dalkay wataan bal diyaaradda duqaynaysa faano say ku kala ogaan in militarigii dalka yahay iyo inuu kii la dagaalamaya maadaama ciidankii dowladdu safka soo galay dagaalka waa midda keentay inay dib u duqayso xiriin marka horta odaygii abiy ahaa waa fashilan yahay nin fashilmay ama dhimanaya ama tegayana cid badbaadin karta mali inuu ilaahay waqtigiisa dilay ninkan waqtigiisa dhintay cidna yeeni ku daalin kuwa moodaya abiy inuu geed ka dhex baxay dalka yahay abiy geed ma ah waa qof shakhsi ah kuwii hore meesha mareen buu mari welibana asagaa noqon doona ninka ugu xun ugu liitu noqon doona haddana xaalkiisu waa gabagabo horta dhanka waqooyiga xaaladdu waa saas dagaal baa jilbaha la isu dhigan dowladdii ciidankeedii dabkiiba wuxuu u geynayaa mucaaradka hadda nin oroma wuxuu yidhi dowladdani inay guulaysanen waxaa iga cad buu yidhi dagaalka gobolka axmaarada ka socda dagaalka gobolka axmaar calaamadaha ku gartay waxaa ka mid ah buu yidhi in dowladda saadkeedii ciidanka raashinkii bariiskii sonkortii qamadidii saliiddii iyo buskudkii ay sii dhiibto faanaaba ka sokayso way leexin faanadii cundaba ka wada dharagtayba dhallinyaradii axmaarada gaajaysnay oo shaqala-aanta ah istoori iyo haweenkooda ciyaalkoodina way dhargeen wixii baa loo dejinba ciidankii dowladda gaajaalays ciidankiibaaba carari oo faanada cunu u raadsanay marka halkaas horta waxaad moodaa waxbaa calan baa ka soo biglaynaya meesha laakiin laga taagi doono ayaa sugaynaa horta calanka faanada tigrayga faanada way isla socdaan eritrea way la socotaa isbeddel khayr qaba ayaan rajaynaynaa horta dhinaca kale addis ababa ammaankeedana waa la adkeeyey ciidamo badan ayaa lagu daadiyey odaygu jiifkii waa la dilaayahay wuxuu ka baqayaa inuu gacan ku baxo wuxuu ka baqayaa inuu gacan military galo wuxuu ka baqayaa xoogagan xanaaqsan inuu gacantooda galo odaygu waxaa suurtagal ah 24 saac soo socda iyo maalmaha inugu soo aadanba inuu war weyn ku dhawaaqo hadduuna dagaal cilaaminin asagaa beesha ka baxay xaqiiqda dhabta waa saas xabaddu addis ababa ay ku soo dhacaysaa ama asagaa bannayn ama dagaal aan la garanaynin meel uu ku dambayn doono oo qariska tuurnimo ah ayuu oday ku dhawaaqayaa waa xogihii ugu dambeeyey ee naga soo gaadhay dalka Itoobiya iyo diblomaasiyaddu waxa ay qorayso sidoo kale odayga abiy ahaa waa kii tagay South Africa shirkii BRICS ka qayb galay dalalka G20 loo yaqaano yuu ka qayb galay madax badan baa halkaasi joogtay oo ka mid yahay ra'iisul wasaaraha India dalal badan oo sida Turkiga dawlado badan baa meesha fadhiyay odaygii meesha madaxda kale si farxad ah meesha ku joogeen asagoo kursi uu qabanay sababtoo ay tahay albaabka hore waxaa qayliyay Ethiopian oo abiy ha tago abiy hala waayada haya hana loo qabtay ilaa anaga lagu soo reejeelin oo booliska South Africa uu buro loo taagan yahay madaxda kalena dadkooda si qurux badan oo sharaf leh ilaa waa rag xilkase yaa loo soo dhaweeyay meesha abiy ahmedna la leeyahay Ethiopianka albaabka hore ku mudaharaadaya oo waxay leeyihiin ninkaas yaan dalka lagu celin hana laga qabto afrikaan oo meena naga naxayn yeelay waa wiilkii ismooday inuu yahay dayax soo baxay horta xaalkiisu abiy ahmedna waa saas khiyaaray abiy ahmed xaalkiisu aad iyo aad ayuu u adag yahay odaygu marxalad wuxuu ku jiraa aan la qiyaasi karin oo ah hogaamiye dhacaya ayuu odaygu calaamad diileeya markay khiyaaray abiy iyo Ethiopia kollay meel bay iskala dhici doonaan abiy iyo Ethiopia meel bay iskala dhici doonaan Ethiopia laba mid bay noqon ani lama horta qolo cusub oo xoog badan ama faana Allah ka dhigo ama TPLF Allah ka dhigo ama waxa la garanayno oo Allah ka dhigo inay qolo Ethiopia maanta xakameyn doonto inay jiri doonto lama laakiin haddii Ethiopia aqoonyahankeedu isu yimaadaan dadka wax laga maqlo aqal saliimkii culimada isu yimaadaan oo la dhaho war waan isku jabna waan isku dhamaanay see wax ku wada wadaagi karaa waxna kala yeelan karaa haddii la dhihi lahaa inay degleed waa laga yaaba laakiin meeshan waxbaa ka soo socda
isha si weyn waa yaalkan intaan barnaamijka mida ku kulmi doono intaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa khaaray assalaamu calaykum ayaan leeyahay waraxmatullahi wabarakaatu